بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعوة qiimiga badan kusoo dhawow Abekatech. maanta muuqaalkan waxaan idinkugu faahfaahin doonaa cilad haysato gabar walaasheena ah laga yaabo bulshooyinka Soomaaliyeed oo ka caawinayso sida hore ay codsateen in applicationada qaar aan ka soo hadlo ciladaha haysato iyo applicationo insha Allah muuqaaladaasna way soo socdaan hadduu alla yiraahdo. bal waxaa ku leeyahay channelkan hadda ku cusub tahay fadlan subscribe ina saar sidoo kale jeliskiiro oo dhanka midigkaaga soo qabanayna furo si aad ula socotid xog waliba ama channelka wax walba la soo geliyo insha Allah. haddii aad nala joogtayni fadlan muuqaalka inuu la garay asxaabtaadana la sii wadaag. waxaa laga yaabaa haladaas haysato inuu asiga oo xalkeeda uu helo insha Allah. marka muuqaalka maanta waxaan ku qaadan doonaa sida TikTok account warning sida looga qaado, sida codsi loo dirsado, habka ugu fiican codsiga loo dirsado insha Allah. bal yaan hadalka ugu daalanay muuqaalka faahfaahsan aan isla daawano. ugu horeyn horta akoonkaaga TikTok ayaa soo kicin doontaa. akoonkaaga markaad soo kicisid fadlan waxaan ka codsan lahaa hadda akoonkan ku cusub tahay waxaan ku leeyahay follow inoo soo dheh waa Abekatech. aniga hadda akoonkayga wax waanin uguma xirno waxaa rabaa akoonkan gabadhan walaasheeda ah inaan caawiyo mulkimaanka. fadlan iyadana waxay ka mid tahay asxaabta Abekatech. waxaa idinka codsan lahaa iyadana in maaragtay aad si maaragtay nidaamsan ama si xal kale ay tahay inaad usoo dhaweysataan oo maaragtay follow dhaadeen waayo hooyo Soomaaliyeed waaye. marka insha Allah waxaa sameyn doonaa edit ayaan dhihi doonaa. edit markaan dhahayo wax kale uma baani username-kan u baahanahay. username-kan ayaa maaragtay koobiyeysan doonaa. sida marka uu koobiyeeyo waa ka laaban doonaa. ugu horeyn tabtaas ayaa sameyn doontaa. markii xigtana waxaad sameyn doontaa haddana halkan kugu calaameeyo calaamadaas ayaa taaban doontaa. calaamadaas markaad taabatid kadib waxaad sameyn doontaa ku dhufo. sida markaa ugu dhufatid kadib waxaa kasii xoran doontaa qaybtan ay ku qoran tahay setting and privacy. setting and privacy markaa ku dhufatid qaabkan ayuu kusoo qaban doonaa. waxaad sameyn doontaa filaaro adoo hoos usii wado qaybtan report a problem qaybtaas ay ku qoranta ayaa ku dhufan doontaa. report a problem markaa ku dhufatid qaabkan ayuu maaragtay isku raadin doonaa. in yaruu raadinayaa. markuu sidan isku raadiyo marka waxaad dooran doontaa meeshan ay ku qoran tahay account and profile. account and profile ayaa ku dhufan doontaa. account and profile markaa ku dhufatid tabtan ayuu isku raadin doonaa. waxaa kasii xulan doontaa meeshan ay ku qoran tahay profile page ayaa ku dhufan doontaa. markaa profile page-kan aad ku dhufatid qaybtan hoose ada kuwa kale meeshaas ayaa kasii xulan doontaa. qaybta u dambeyso ada markaa ku dhufatid option-kan ayuu kusoo saari doonaa. waxaa you can find the problem you're connecting tab the need is more helping button is below to report. waxaa rabaa inaad reportkaas gudbisatid iyo screenshot inaad kasoo qaadid waxyaalaha suura u baahan yahay. marka aan hadda no ayaan dhihi doonaa. no markaa dhaho kadib waxaa kasii xoran doonaa qaybtan ay ku qoran tahay need more help. need more help markaan ku dhufto sidaan ayuu maaragtay usoo qaban doonaa. sida halkan idinkaaga muuqato meeshan waxaan gelin doonaa codsi sidoo kale intan picture ay gelin doonaa. bal screenshot aan isla soo qaadan inikan marka waxaa sameyn doontaa screenshot ayaa ka qaadi doontaa qaybtan. sida marka screenka u qaatid meesha ayaan ku laaban doonaa. marka sida meeshan u imaadid waxaa sameyn doontaa photo sort upload photo kusoo dheh. photodan waxaa soo gelin doontaa kuwa u dambeeyay halka photo soo qaaday in maaragtay akoonkan waanin lagu haysto oo intaas kii uu marayo. marka asiga soo gelinayo qaybtan waxaa soo geli doonaa wixii markaas oo laga baahnaa insha Allah. qoraalkani waxaan kusoo dhigi doonaa description-ka muuqaalka hoostiisa hadduu alla yiraahdo. description-ka ayaan kusoo gelin doonaa
marka muuqaalkaas inta meeshan qoraalka marka ku soo geliyo halkan waxa baasti ku leedahay account name-kaaga sida hadda meeshan ku qoran tahay mulki nismaanka 46 waa account-keeda magaca ugu qoran marka intaan marka waa qaban doonaa copy ayaan dhihi doonaa copy marka dhaho halkan ayaan tagi doonaa kadib waxa leeyahay baasti marka dhaho waxa sameeynaya in account-kan oo hadda aan la hadlay qolada TikToker-ka marka waxaan dhahay hello TikTok team waan idin salaamay TikTok team I want digniinteeda is coming to my account-kayga qabsatay I am sorry aad ugu xumaa for mistaken qaladkii iga dhacay at first ugu horeynta I did not understand the manifestation the rule sharciyada I hope waxaa rajeenaya such mistake qaladaadka qaar aan galay will not happen again in mar labaad dhacaan please review my account-kayga dib u fiiriya and help me caawiya username-kayga waa mulkimaanka 46 insha Allah marka waxaa rajeen doonaa hadduu idmo inay maaragtay sida ugu macquulsan ugu dhaqsiyaha badan inay ugu soo jawaabaan markay ka qaadaan screenshot ay idinka soo qaadi doonaa oo waxa idin soo gelin doonaa qaybta community meesha community-ga ayaan soo gelin doonaa hadduu alla yiraahdo meeshaas ayaa falcelin iyo wixii jawaab ah aan ku wada socon doonaa hadduu alla yiraahdo sidaas la mid ah waxaan rabaa in maaragtay community-ga aan soo dhigo barnaamijyo aan YouTube ku soo kordhin rabo qof waliba fikradiisa iyo sida wax u arko inuu ugu soo hadlo ayaan jecelahay marka waxa ku leeyahay aad u maasan tahay daawashada muuqaalkan gabagabadii gunaanadkii ayaan isla soo gaarnay inta hadda ila soo gaartid waxaan ku leeyahay aad iyo aad aan kaaga mahadcelinayaa fadlan channelka subscribe saaro oo rukumo waayo abeekateej wax walba ka filo oo wax walba ka sug hadduu la yiraahdo intan qof bini'aadan ah qof walaal ah aan caawin karo intaan noolaa inaan caawin jecelahay hatta barnaamijyo kale ayaan rajeynayaa oo aan jecelaystay waayo idinka ayaa igu dhiirigelin karo haddii aan barnaamijyadaas aan ku wareegayo marka insha Allah intii barnaamij xiga isla sii gaari doono waxaan idinkaga tagi doonaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu saaxiibkaagana ugu yeer dhanka faalada haddii aad taqaanina qaabkan ka mid ah ka duwan oo aad TikTok-ga feedback aad ugu dirsan lahayd insha Allah dhanka faalada inagala wadaag waxaan ku leeyahay waqti ay ka faa'iideyso bye bye